danta iyo duruuftu waqtiyada ay kula degaan waxaad durbaba isdayn doontaan saaxiibadii dantooda iyo damacooda kugu ag joogay. Waqtigu wuxuu kuu daabici doonaa darsi uusan doqonku daraasay karin, hase yeeshee lagaa doonayo dantaada inaad ku dabaqdo. Isku daygu waa qayb ka mid ah hayaanka guusha. Ha ka noogin qabashada howlaha adag ee kaliya si joogto ah u qabo adigoo hamigaagu yahay hirgelinta fikirkaaga. Guuldarrada waxaa ka mid ah wax kastood bilowdo inaadan dhammaystirin, waana halkuu abwaandhoodan ka lahaa Allah u naxariistee. Howl dheer adoo soo maray oo ku soo dhididay inaad dhaliso gool iyo inaad dhimato mooyaane, dhexdhexaad inaad kaga hadhaa waa dhabcaalnimo halganna dhaawac loogama hakado dhimasho yeelkeeda. Dunidu waa mid kugu dilaysa awoodo sare, waxaana adkaanaya nolosha. Albaab kasta ayaa isxiraya, mana heli doontid qofku caawiya ilaa aad dul qaadato dantaadana aad garato. Inaad cabataahi maaha wax caadi ah, waxaana kugu badanaya ciriiriga nafsiga ah. Waana halka uu ka lahaa abwaan cali cilmi afyara Allah u naxariistee. Murugo iyo ciil waana raga meheradiisiiye, inkastoo masaartii warmaha lagu maleegayo ma cataabo geesugu iyo waa mice adayga. Culays kasta waxaa ka dambeeya fudayd, mar kasta oo xaaladuhu adkaadaanna waxaa dhow guusha. Kaasha laamaha udgoon ee cibaadada, hana jarin xarigga Eebbe. Sahayda iyo saadkaagu ha noqdo salaada iyo sadaqada iyo acmaashasan. Qof kale noloshiisa ha barbar dhigi noloshaada si aysan qanaacadu kaaga guurin. Ha ku mashquulin dadka noloshooda si aadan taada uga mashquulin.